بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin salaamayaa soo dhawaada dadka ku cusub channelka waxaan idinka codsanayaa inaad cuskataan meesha cusub meesha cas inaad subscribe siisaan like dadkan aad la sii wadaagtaan ku soo dhawaada channelka hogatuse hogatusku waxa weeyaan ama hoga tusaaleyn waa marka dadka dhinacyo kala duwan wax laga tusayo wax loo soo bandhigayo wax loo sharxayo wax laga siinayo xog waran marka soo dhawaada waxaan jecelahay inaan idinla wadaago xog yaro kooban maalmo dhowto waxa soo baxday in gabadhii Ilhaan xildhibaanada ka tirsan Congress-ka Mareykanka in iyada iyo dhowr iyo 10 kale xildhibaan la xiray kadib markii ay wada xidheen si aan sharci ahayn isla markaana ay ka hor yimaadeen go'aankii maxkamadda sare ay ku joojisay in dumarku ay ilmaha iska soo ridaan waxa loo yaqaan abortionka inagu horta dadka muslimiinta subxaanaka yaa cadin waxayna waa xaaraan weeye moogtahay waa naf la dilay weeye marka waa waxaan loo dhawaan karin marka Ilhaan bariyaha horena dhowr jeer waxa u dhacday waxay soo muuqatay iyadoo la dabaaldegaysa dadka isku jinsiga raadiya ee magaranaysaayeen dadka xun ee magaranaysaayeen gabadha ninka magaranaysa wadamka westernki reer galbeedka imika waxa weyn aad moodo inay nolosha u jeesteen subxaanaka cadin waa nooc kamida waxa weyn aafooyinka galaafanaya marka Ilhaan waxa ku dhacday waxa loo yaqaan conflict of interest danaha isduqeeyay waa gabadh muslimada Soomaaliyeed Afrikaan xijaaban haddana waxyaabaha u ololeynaysa dadkii soo doortay bay qayb ka mid yihiin haddana macnaheedu ma hayna madaxa xabad kaga hayaan xisbigeeda ayaa waxyaabaha u ololeeya marka qofka laba ba kala hor yaalo iyadoo markay tahay gabadha xijaaban qalbigeedana Ilaahay baa og laakiin astaanteeda islaamnimadu way ka muuqataa waxa weeyaan inaad dad raali geliso waxa ka weyn inaad Ilaahay raali geliso labadaas ma iyada hor yaalay marka imika waxay dooratay inay dadka xumaanta raba inay ilmaska soo xaaqaan dadka magaranaysa iyagu xuquuq u arkaa inay u ololeyso waliba ay muujiso in loo xiro marka waa rin aad iyo aad runtii looga naxo marka iyada labada danood baa isku qabsaday wadamada westernka qofka muslimka ah hadduu siyaasadda ka qayb galo waa waxyaabaha jallaafada u dhigaya waa waxyaabaha aafada ah ee dhibaatada ah ee turanturada ah ee hortaalla waliba imika waxa loo soo xiibsiibanayaa waa nolosha dhinaca xun oo dadka isku jinsiga ah oo imika ololahooda sayna shaqo ku lahayn uu socdo aad moodo imika inay dawladihii la wareegayaan marka qofkaasi markuu siyaasadda galo xisbiga galo waxa weeye waxyaabaha ka hor imanaya ka mid tahay qofkaas waxyaabaha sidoo uu arka iyo aragtidiisa halku ka taagan yahay ma garanaysaa marka waynu nasteexanaynaa waa walaasheen waxaan baynu leenahay qofka muslimka toobadda way u furan tahay waxa weeyaan waxyaabaha ay faraha la gashay dadka soo doortay waa dad maasha Allah dad badan oo muslimiin ah oo Soomaalidu hormuud u yihiin ayaa soo doortay dadkan aad doonaan ha ku jiraan marka inaad intana raali geliso in kalena aad ka caraysiiso
intana ay ka wentaba ilaahay subxaanaka yaa cadiim yaa waxyaaba uu xarimay oo muxaramaada oo halisa inaad iyadana aad tiraahdo waan taageerayaa waan la xafladaynaya waan la boodayaa marka walaasheen de waynu waxa weeyaan waynu la talinaynaa waa qof horumar samaysay hase yeeshee horumarku inuu qofka halaaga maaha horumarku hadduu halaag kuu horseedayo oo qofka aakhira ka fikirayo oo ilaahay ka cabsanayo oo inuu faraha kala baxo oo marka siduu khayrku ku jiro inuu doorto weeye marka laakiin hadday istusnimo iyo iska dhaadhicin iyo ilaa xad soco iyo qofka dan madaxa maxbad baad madaxa lagaga hayaa yaa marka taas waa taladaa kooban aad iyo aad bin salaamaya waa cabdishakuur maxamed soo ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu